Berarkan waxay ka kooban yihiin sida shamiinda iyo caro. Waxaa aaminay dalkayga inaan ka shaqeysan karo oo xaalad kasta aan ka shaqeysan karo. Warshad la'aan ayuu gacantiisa ku sameeyay biraha loo isticmaalo jiimka isagoo adeegsanaya xirfadiisa dhismo. Birtan aan gacanta ku hayo iyo qalabkan kale ee horteena ka muuqanaya waa qayb ka mid ah farsamadii uu gacantiisa ku sameeyay warshad la'aan wiilkan dhalinyarada ah isla markaana la yimid hibo farsameed. Cali Siciid waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool xero barakac oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho. Waxa uu la yimid fikrad uu ku sameynayo biraha loo isticmaalo jiimka isagoo aanan isticmaalin wax warshad ah. Cali ha inooga sheekeeyo sida uu ku bilaabay fikirkan. Wallahi fikraddan maray igu soo dhalatay oo ciyaal oo markaas tababaro ah oo xaafadda dhalinyarada wax qabad zaid ah u sameeyay. Markaas waxay igu arkeen markii wax qabadkayga zaid yahay dhalinyaro badan iyo ficilo badan aan filinaynin dhalinyarada xaafadda kala kulmay. Dhalinyaradii sidii si fool xumo ku kala tagnay. Markaas markii Ilaahay waxa ka toogay shalay dhalinyarada dhexdooda bulshada magac oo walaal magacaas hadana ku heli lahay ama soo igu soo gal lahay Ilaahay ka toogay marka Ilaahay amarkiisa meeshana Ilaahay lugta ii geliyay. Wallahi birarkana hadda sameeyaa ayaga hadda dhalinyarada oo soo gudbiya oo sportiska iyo kuwa inay jirkooda dhisaan ay rabaan. Birarkan waxay ka kooban yihiin sida shamiinda iyo caro ay ka kooban yihiin rinji mariya. Sidoo kale Cali wuxuu inoo sheegay in fikraddan bilowgeedii uu caqabad kala kulmay isla markaana uu xilligan ka maareeyo noloshiisa iyo tareerkiisa. Wallahi nolosheedu waa kaafisasita shaqadan kaligeed ma qabti. Shaqo dhismana waa ka shaqeeyaa. Marka cidi iyo reerkaas ku biishtaa markasta. Ani naftirkeyga macquul way ilin qabays waxa gacanteedu ka sameeyay markay dad dhalinyaro ay qaadanayaan ay gadanayaan. Ani naftirkeyga macquul way ilin qabays. Wallahi dadka qof sidoo kula hadlaa anna baraha bulshada soo geliya. Markasta qof kasta wuxuu ku leeyahay qofa wixii uu iska raba laakiin oo ku wareysana oo gorgorina maalinta kale oo ku imaana oo ka gadana midna oo iska weydiina marka xaaladaha way iska adeegayeen waxyaabo badan ku dhex jira oo meeshan laga sheegi karin. Qayb ka mid waa qalabka soo qofka oo xaafadiisa joogo si dabiici ah inuu marna doo qof shaqaysta yahay inuu marna shaqadiisa oo ka imaado galan oo naftiisa oo waqti siiyo oo dhididkaas caafimaadkaas ka baxay muhiim noo anaga. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayuu Cali Siciid ugu baaqay inay la yimaadaan fikrad la mid ah tiisa si ay u maareeyaan noloshooda isla markaana ay uga baaqsadaan waxyaabo ay ka mid yihiin tahriibka. Wadanka waa dareemaan qof oo maanta oo muwaadin wadanka ku dhashtay ahay marka qofka dhalinyarada maanta dhalinyarada badan hadda waxay kala ordayaan tahriib. Anina waxaas weligay ma baniyaysan tahriibkaas ila sheegay waxa aaminay dalkayga inaan ka shaqeysan karo oo xaalad kasta aan ka shaqeysan karo maanta tan haday burburto ama haday si kala naqato wiji cusub inaan furo karo. Wallahi dhalinyarada waxa farin u dirlaa nin kasta oo hamile maanta oo hiigsi leh hamigaada ka caajisin waxaan bilaaw hore ibleeyay inuu ka dambeeyo si qurux badan waxyaabo falcelin oo macquul ah ka iimaanayso marka nafsadaada bis xilqaan waxaan markii ay aragtay inaan ka caajisaysid laba rakacsan oo sunnah salaad u tuko culayska ka saaran iyo waxaas meesha ku baxayaan.